maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaaladan meesha guduudan subscribe si suulka dad ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan waa wartayo xalay ciyaar adag bay ahayd markay ciyaareen nimanka la yiraahdo derby county ay soo baxeen حسنا وحن أبنى هاي لبدا من حتى عيارته كما تبيس فاينالكا بلايوفكا بريمير ليج لوgu soo baxayo ciyaaraya walaba nin oo Chelsea ahaan jiray oo Captain John Terry iyo Frank Lampard isagu xataa mar hogaamiye kooxdan Chelsea laakiin Derby County waxay xalay sameysay waxaan hore looga sameyn xataa ciyaarahan Championshipka ayay koox lugta kuwaad gurigeeda looga soo bari ee haddana soo baxday wax macquul ma sameyn xalay Derby aad iyo aad u ciyaareen oo natiijo weyn ay gaareen laakiin halka Aston Villa oo John Terry kamid yahay habeen wadiyadu ay gaareen darbajasa ama goolkulaad rigorgooyay ku soo baxeen laakiin marka loo fiiriyo Derby sida ay ku soo baxday Derby aad iyo aad looga baqaya waliba Frank Lampard ilmihiisa ama wiilashiisu aad iyo aad bay u cabsi gelinayaan kuwa Aston Villa ah walaalkaas ay joogaan khatar badan Berlish baa kamid ah nin weyn ah oo xataa kooxaha weyn England ay doonayaan sports ay kamid tahay waxa ku jira midkii Ibraahim oo blue u ciyaaraya ku jira dadkoo al-Maxamedi xataa meesha jooga sababna waa xooggan tahay laakiin Derby waxay xalay sameysay Aston Villa waa loo yaabi karaya waliba labadan kii soo baxay sanadka Premier League waxaan u maleynayaa inuu shidi doono sababtoo ah sanadka waxaa naga yaastay Wolves oo hadda sanadkan heerka ay gaartay waxa warkeedu u maraya inay Europe ka soo qayb galaan bay doonayaan waa nimanka sanadkan kooxaha weyn dhibay marka waxaan leeyahay final adag ayaa dhexmari doona labada nin ee Chelsea soo ciyaari jiray oo Frank Lampard iyo ninkan kale Diado John Terry markay ciyaarayaan Aston Villa iyo Derby maxamed kulay waa ciyaaraan waa doonta waay maxamedow marka la eego arintan hadda kulanka ugu dambeeyay ee Lampard iyo Terry oo kale yuu u baahan yahay horyaalka Barclays Premiershipka dhinaca xamaasadda dhinaca ciyaar wanaaga dhinaca kicinta taageerayaasha isku duubnida ciyaarta iyo waliba ciyaaryahanada iyo kooxda iyo maamulka Terry ayaa Premiership inuu soo dhaweeyay mudan mise Frank Lampard iyo Derby County inay yimaadaan wallahi aragtida wuu kala duwan yahay horta kii soo badiya ayaa horta meesha imaan doona walow dadka Chelsea Chelsea taageera iyo dadka kale kor kala socdo ciyaaraha annagoo kale marka labadina isku bardhigno waxaan isleeyahay karnaa Frank Lampard buu Premier League u baahan yahay maxaa yeelay Frank Lampard waa xamaasad leh xarig waxa la arkayaa si uu dabaaldegay u boodboodayay runtii waxaan dhihi karayaa Premier League waxaa tababar ka ahaan jiray in la oran jiray Doro Dicanio waqti yar buu Sunderland tababar waana waalay isagoo dhanba ciyaarta iska dhex ordayaayo waa dabaaldegayaayo ninkaas wax yar uu naga yaabsaday waxaan isleeyahay in ay Derby timaado oo waliba lagu xasuusto salaantii uu sameeyay fajeystaha Lampard maxaa la oran karaa waa uu ku soo kordhin karaa horyaalka Ingiriiska wallahi xasan Lampard nin weyn weeyaan wax badan waa soo kordhin karayaayo hadii waxaan uu soo saari karaa dhalinyarada maanta arkayno xalay kan baagiyaabka ha sameeyay golkii koox laga badiyo wax badan ayuu Frank Lampard keeni karaa ninkan Derby ciyaartooy waa nin la dheelsan kara ma aha ninkan nin hadda wuxuu noqday kooxdan ugu goolasho badan hadda marka laga hadlayo ninka Chelsea ugu goolasho badan Premier League waxaad raadinaysaa nin weeraryahan ah hadda waa nin qadda ninka Lampard ah marka ninkan wiilasha uu soo saaro balaayo weyn uu soo saaro ninka wuxuu soo saaro waa balaayo cad oo aan waxba laga qaban karin buu soo saarayo aad waa keesi fiican oo darba ka baxayso gool dhalinayo ciyaarayo dagaalamaya Frank Lampard weligeed ma ilaabi karno dadku qaar waxay bardhigay isaga Steven Gerrard berigi ciyaarto dadku ay xisaalu jireen isoo bardhigi jiray laakiin waxaan leeyahay Gerrard wuxuu ahaa nin khatar badan Frank Lampard wuxuu ahaa nin khatar badan walow Lampard uu ahaa nin goolasho ku dheereeya oo aad u fiicnaa berigiisii ugu dambeyntii marka aanu falanqeynta guud aanu eegno maxaa laga diiwaan geliyay horyaalka Champions League oo kale laba Ingiriis inay timaado dadka maxalilka ciyaaraha iyo gaaraan Soomaalida iyo waliba dayowga kale maaragta ciyaaraha maxaa 10 oo laga baran karaa Champions League iyo wixii ugu waaweynaa ee la hadal hayn karo macnaha kulanka Madrid ka dhacay والله حسنا إنجليز خلص العماد بيلين إنجليز كوحي العاية ومرة اللي جري دول اللي إنجليز كوربهين تأكون بونس اللي هذا إنجليز خلص كان عماد دول ما هيسكر من عماد لويان محيي إنجلان وحي جارين تاريخ أنا هاي ودن كجارين ولقي شو يجيبوا فينا الكيس يجا تشوفه يربيه فينا الكيس يجا تشوفه ما تشرت التاريخ ذا ودن أكثر كوح كسر طيب ولا عياران فإن هذا يوروب ليج يجمع ولقي واحد سميتها ما تشرته ولذا وحال
hayaa finalka Europe League iyo Champions League waa hadda qodobada ka maqlayay ninkii dhaawacmay ee lagu ciyaarayay la sheego kale muhiim u ahaa baabku finalka ka dhici karaya maqtiriyaan oo asagu dagaal ahaan yani Armenian ayaa waxa la islahaa ama finalka ciyaari karino maadaama Azerbaijan oo lagu dhigayo finalka baabku lagu ciyaarayo dawladaha wadamadiisu dawladda Armenia iyo Azerbaijan bay tahay aad isu faaleeya sidoo waxa la lahaa ama maqtirin ciyaari karin laakiin hadda waxay sheegeen nimanka Azerbaijan waa inuu ninkan ciyaari karo haddii aan rabno ninka iyo Champions League finalkiisa waxay Liverpool samaysay oo waxaan caadi ahayn Liverpool kismaayo jooga idagaysa waxa la ramadii laba haysan karo waxaad samayseen odayaashii kamal daariga saad u waasheen anuu dhawaale la yaabay nanka Barcelona sanad kale ciibuuday laba sano isku xiga in Barcelona iyagoo badiyaa la reebo wallahi maruma cishna Barcelona waxa la Liverpool hambaliyaan leeyahay laakiin Tottenham ay markaas la ciyaarayaan Liverpool waxa leeyahay Tottenham waa khatar laakiin in badan walaayada lama saar kara isleeyahay Ibraahim Liverpool oo waxa wax laga qaban kari sanadkan adkay Barcelona dilow Tottenham u dahay dadka qaar leeyihiin laakiin Bruniga waa naska macal abuhu waxa laga yaabaa iyadoo isla haddana inay koox bixiyaa waa laga yaabaa marka waxaan qabaa koox sanadkan waa finalkii saddexaad ee Champions League ciyaari doono haddana finalka Champions League saddexaad aanu qaadin arma mar kale laga qaadaa marka oo hadda Borussia Dortmund oo kale waa laga qaaday Borussia Dortmund kulankii kale waa ogeed in laga qaaday Real marka asagu hatta waa عليه بيكون خطوة هذا من كان ليفربول وحوجا إنكاري وأكيد جرتا إنكار هذا واقعي سنة كرمان سيتي أي نقطة شامبيون إلى مركلة إنكار هذا واقع سودان سنة جرتا نجا بريمير ليجو لكن كان شامبيون هذا كان قاري ويانا وين باخذ عكسليفو حتى هو حاليا هو شو حتى يدادان ورماشي أنا مزمرة هنو بلاين كاران ماشي نشوف كيف أنا كده حبها اللي لازم بالغ جابا ما هو حان سلايا هاي حديث سنة كان قولهم يقولون والبلدي هو وين باخذ عيسى حل عيارات حتى كل يريد ما تنبغوا توبره ونقرأي أفر سنة أيام ليفربول وقاعد دون حلقة يعني هو شيء أفكتون الدرين ليفربول اللي تايكوح من كارنا وحقادي وإذا أفر سنة أيام ليفربول حلقة وقاعد دونها حتى أفر سنة ليفربول حلقة وقاعد ويجري وأنا سكعد دون الريال في سويسرا بان آدي دونها هل أفر كي سنة وحوها تنكرية تمليك الفينال كيس هدارو قادن مركا زيرو كوب أيوة في كي سنة بلانت وقوب دونها مركا فينال كتمليكو يوروب ليجو وعلى هاي سنة كان إنجليز هو سنة يا أبو قطر بدأ ولو حلا يابا أبغى مريت بندور إنجليز كله قبضيه هي صورة الجرا فريق الفانتاز له قناعات أنا مثلا نكرا مهم وياه ولو ده فقراء اللي كبد عبد خير أصول عادي عياري أنا عياري فينا كتشبليكو إن السيجا إثنين بندور صالان رونالدو حتى كورة صون عياري كتشبليكو فينا في كريستيانو أيام المريت السيجي ميسي صون عياري بال السيجي كل ميسي ما عاد لكن هذه تتعامل مع الجمهور كقولش سواء لغير تتعامل مع الشحاري كرا والمريض لغير الشحاري كرا لكن هذه مرة تعلم ويقاده فهو تنبطها وحقاق محمد قدر إبراهيم داهر أيها وكترسن إذا عدى عيارها كفالوتا مقالة مقدشو جول FM إساق جوهر جوغا أيو تليفون كأيو ورمي maanqaad media haddii ay ku dhaafaan muuqaaladan meesha guduudan subscribe si sulkadaada ku sii karin farta aayar jag ku sii sidoo kale gambaleelka ee dhawaaqaya jagsi si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee uu soo gaaro muuqaalada iyo barnaamijyada xiisaha badan